meel walba joogtaan saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana kamid ah madaxweyne qoorqoor oo hoggaanka Ahlusunna saaray xanibaad dhanka dhaqaalaha iyo dagaal laga cabsi qabo inuu dhuusamreeb ka dhaco wada hadallo hoos oo bilowday Xaaf iyo Qoorqoor ayaa ka dambeeya wada hadallada waad maqli doontaan sidoo kale daawadayaal waxaad daawo doontaan saraakiishii ciidanka Itoobiya ugu sareysay ismaamulka Oromada oo toogasho lagu dilay Axmed Madoobe oo dowladda cajiib ah ka sameeyay duleedka Jamaame Somaliland oo shaacisay arrintii u socdeen wafdigii Itoobiyaanka ahaa ay Hargeysa tagay odayaasha ceerow ka digay dagaal ka dhan ah Ahlusunna oo ka dhaca dhuusamreeb iyo ciidamada Amisom oo dil iyo dhaawac ka geystay duleedka Mahaday intaad maqasheen wixii ahaayeen daawadayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka taariikhdu waxay tahay 22 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno Galmudug dhowrkii saacadood ee u dambeeyay ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor amray isbedel degdeg ah oo lagu sameeyay ilihii dhaqaalaha ee Ahlusunna sida garoomada diyaaradaha dhuusamreeb iyo Gurceel iyo kontaroolada labadaasi magaalo oo dhaqaale badan ka soo gali jiray hoggaanka Ahlusunna Axmed Naasir Qaali ayaa loo magacaabay madaxa maaliyadda garoonka diyaaradaha dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug iyadoo laga joojiyay shaqada shaqsigii Ahlusunna xilkaasi ugu magacawnaa sidoo kale garoonka Gurceel iyo kontaroolada labada dhinac ee Ahlusunna oo horey u maamuli jirtay dhaqaalahooda ayaa waxaa lagu bedelay shakhsiyaad ka amar qaadanaya wasaaradda maaliyadda Galmudug Ahlusunna ayaanan arrintan weli ka hadal walow la sheegay inay jirto talaabo kale oo lagu doonayo in mushaaraadka looga jaro shaqaalaha rayidka ah ee ka agdhow Sheekh Shaakir oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Galmudug iyo in ugu dambeyn laga qaado talaabooyin intaasi ka adag khilaafka u dhaxeeya dowladda iyo Ahlusunna ayaa cirka isku shareeray dhanka kale odayaasha beesha ceer ee Habargidir ayaa ka digay dagaal adag oo lagu qaado Ahlusunna odayaasha beesha ceer ayaa ka digay in lagu dagaalamo magaalada dhuusamreeb oo ay isku hayaan dowladda dhexe iyo ururka Ahlusunna wal Jameeca hadalkooda ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dowladda ku sugan dhuusamreeb la sheegay inay wadaan qorshe ay Ahlusunna uga saarayaan dhuusamreeb ciidamadaas ayaa shalay si buuxda oo loo wareegay dhammaan ilaha dhaqaale ee magaalada dhuusamreeb odayaasha oo ku shiray dhuusamreeb ayaa sheegay in amniga Galmudug uu yahay mid lama taabtaan ah oo aan gorgortan laga gali karin waxay ka digeen in la weeraro xarunta Inji oo ay degan yihiin madaxda ugu sareysa hoggaanka Ahlusunna sida hogaamiyaha guud ee Ahlusunna Macalin Maxamuud madaxweynaha Galmudug garabka Ahlusunna Sheekh Shaakir iyo xubno kale oo ka tirsan Ahlusunna isla markaana laga saaro magaaladii ay u soo dagaalameen waxayna ugu baaqeen in saamigooda laga siiyo Galmudug waxaan uga digaynaa dhalinyarada inay hubkooda u adeegsadaan dad aan ahayn kuwii loogu talagalay in lagula dagaalo ayay yiraahdeen qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka hadlay odayaasha ayaa sidoo kale ka dalbaday dowladda Soomaaliya inay raali gelin buuxda ka bixiso odayaashii Gurceel lagu celiyay xilli ay u soo socdeen dhuusamreeb dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in erga ka socota Xaaf iyo Qoorqoor ay wada hadallo u socdaan madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa bilaabay dadaalo wada hadallo kula galayo labada madaxweyne ee Galmudug ku sugan sida Xaaf iyo Sheekh Shaakir wararka ayaa sheegay in magaalada dhuusamreeb ay iminka ka socdaan kulamo iyo dadaalo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa xiisadda Ahlusunna iyo maamulka Qoorqoor u dhaxeeya sida uu sheegay wasiirka tamarta Galmudug Axmed Shir Falagle qorshaha wada hadallada labada maamul ee ka dhisan magaalada dhuusamreeb ayaa waxaa ka qayb qaadanaya odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka ururada bulshada rayidka Galmudug Axmed Shir Falagle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Qoorqoor uu ku howlan yahay sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa arrimaha Galmudug ee cakiran waxa sidoo kale xaqiijiyeen Qoorqoor uu wada hadallo kula jiro maamulada ay kala hogaamiyaan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo mid walba uu sheeganayo inuu yahay madaxweynaha rasmiga ee Galmudug wasiirka ayaan rajo wanaagsan ka muujiyay in khilaafka ka jira dhuusamreeb iyo gebi ahaanba Galmudug la soo afjari doono maalmaha soo socda kadib si loo dhiso xukuumad cusub doorasho ka dhacday Galmudug ayaa keentay inay sameysmaan 3 maamul Xaaf oo gaalkacyo ku sugan ahaana madaxweynihii Galmudug ee waqtigiisu dhamaaday ayaa halkaasi baarlamaan iyo waxa uu ku dhisay madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan dhanka kale Ahlusunna
oo iyadana ku sugan dhuusamareeb ayaa dhistay maamul cusub, halka dowladana dhuusamareeb ay ka dhistay maamul uu madaxweynuhu yahay Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo horey uga soo mid ahaa golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Arrintan ayaa keenaysay inay sii cakiranto khilaafka u dhexeeya Galmudug. Maalmihii u dambeeyay ayaa xiisado dagaal waxaa laga dareemayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo ay ku wada sugan yihiin laba gudoomiye baarlamaan, laba madaxweyne iyo ciidamo kala taabacsan labada dhinac. Markaana Itoobiya, taliyihii ciidamada booliska magaalada Buuraya ee gobolka Oromada ayaa toogasho lagu dilay xilli ay ka casheynayeen meel aan sidaas uga fogeyn magaalada. Sidoo kale waxaa toogashada lagu dhaawacay taliyihii ciidamada gaarka ah ee gobolka Oromada. sidaasi waxa uu wariday laanta afka ama xariga idaacadda BBC-da. toogashadan ayaa imaanaysa xilli dhawaan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay booliiska gobolka Oromada ku eedeeyeen in garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ay dad gaaraya 30 ruux iskugu keeneen kadibna ay garaaceen. Markaana Jubbaland, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dowladda Soomaaliya khilaaf kala dhaxeeya ayaa dowladda cajiib ah wuxuu ka sameeyay duleedka Jamaame. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa booqday ciidamada daraawiishta Jubbaland ku sugan furimaha hore ee dagaalka kula jira Al-Shabaab gaar ahaan meelaha aan ka fogeyn degmada Jamaame. madaxweynaha ayaa halkaasi ugu tagay sidoo u dhiirigelin lahaa ciidamada kaabiga ku haya degmada Jamaame iyo deegaanada kale ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa madaxweynuhu halkaasi kula kulmay saraakiisha hogaaminaysa howlgaladan iyo mas'uuliyiin kale isagoo ku booriyay inay si laba jabaaraan howlgalada ka socda gobolkaasi Al-Shabaab looga dulqaado dhibaatada ay shacabka ku hayaan. sidoo kale madaxweynaha ayaa saraakiisha ka dhageystay sida ay howlgalada u socdaan iyo guulaha ilaa iyo haatan ciidamada way gaareen. ciidamada kala duwan ee howlgalkan iska kaashanaya oo kala ah ciidamada daraawiishta Jubbaland, ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada sida gaarka u tababaranaya danab ee Jubbaland ayuu madaxweynuhu sheegay inay cashar u dhigeen Al-Shabaab maalmaha soo socdana gaari doonaan tuulooyin cusub oo hoostaga degmada Jamaame. Somaliland ayaa shaacisay in arrintii ay u socdeen wafdigii Itoobiya ee Hargeysa tagay. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ujeedka ay Hargeysa u yimaadeen wafdi ka socday dowladda Itoobiya oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda dalkaas Axmed Shide. wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo la hadlay BBC-da ayaa beeniyay in wafdigaas ay u socdeen qorshe la xiriira imaatinka madaxweyne Farmaajo ee Hargeysa. Koore ayaa sheegay in wafdiga Axmed Shide aanan wax culays ah ku saarin xukuumadda Somaliland sidii Farmaajo u imaan lahaa magaalada Hargeysa, taasi oo horey u diiday Somaliland. wuxuu intaas ku daray inaysan jirin wax iska bedelay mowqifkii Somaliland ee dhawaan madaxweyne Biixi ka sheegay baarlamaanka. Koore ayaa sheegay in ujeedka wafdigaasi uu ahaa arrimo ganacsi gaar ahaan dekedda Berbera. wafdiga Itoobiya ayaa la sheegay inay dib ugu laabteen magaalada Addis Ababa. Somaliland weli wax war ah kama soo saarin cidda la kulantay wafdiga iyo waxyaabaha ka soo baxay. ciidamo ka tirsan Amisom ayaa dad shacab ah ku leeyay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Mahadai. wararka ka imaanaya degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada Amisom oo ka howlgala degmadaas ay ku dileen hal ruux oo rayid ah, mid kalena ay ku dhaawaceen kadib markii ay miino la qaraxday mid ka mid ah gaadiidka Amisom. gaariga miinada la qaraxday ayaa marayay duleedka deegaanka Buurane, waxaana ciidamada Amisom ay rasaas ku fureen dad xoolo dhaqato ah oo marayay meel aan ka fogeyn, sida ay rasaastani hal ruux ku geeriyooday halka mid kalena dhaawac ka soo gaaray. gaariga miinada la qaraxday ayaa marayay duleedka deegaanka Buurane, waxaana ciidamada Amisom ay rasaas ku fureen dad xoolo dhaqato ah oo marayay meel aan ka fogeyn, iyadoo rasaastaasina hal ruux uu ku geeriyooday halka mid kalena dhaawac ka soo gaaray. siday sheegeen dadka ku nool deegaanka Buurane oo hoostaga degmada Mahadai ayaa dhibaato ku qaba ciidamada Amisom gaar ahaan xilliyada ay la kulmaan miinooyinka dhulka lagu aaso. horey ayaa ciidamada Amisom dad ugu dileen halka kuwa kalena ay uga dhaawaceen deegaano ka tirsan degmada Mahadai Shabeellada Dhexe. daawadayaal waa naga intaa wixii warad nagala socoteen. haddii aad nagu cusubtahay fadlan daawada subscribe.